السلام عليكم سودو داودي maanta waxaan doonayaa inaan ku sharxo film lagu magacaabo Captain Phillips. Filmku waxa uu ku bilaawanayaa baadmareeye lagu magacaabo Regan Phillips. Waxa uu isku diyaarinayaa safar badda ah. Waxa uu mas'uul ka yahay markab lagu magacaabo MV Max Alamba. Waxa saaran markabka 23 shaqaalo. Waxa uu sidaa badeeco gaaraysa 17,000. Markabku waxa uu ka soo kacayaa xeebta Malile ee dalka Yemen. Waxaana uu sii jeedaa magaalada Mombasa. Regan waxa uu ka soo tagayaa gurigiisa waxaana la socoto xaaskiisa si ay u sagootiso way ismarxabeynayaan wayna kala tagayaan dhinaca kale magaalo ku taala Soomaaliya oo lagu magacaabo Ayl waxa ku soo wajahan koox burcad badeed ah waxay diyaarsanayaan qorsho waxayna doonayaan inay soo afdubtaan markab waxayna dadka magaalada ku qasbayaan inay la soo afdubtaan markabka laakiin lagu magacaabo Muuse waxa uu dooranayaa saddex kale oo lagu magacaabo Bilaal Najiib iyo Cilmi waxay soo qaadanayaan dooni waxayna haystaan qalab la shaqeeya satellite-ka kaas oo u sheegaya halka markabka uu joogo waxay ogaadeen in maraakiibtu ay isku dhow yihiin marka laga reebo hal markab oo ka fog iyaga waana markabka uu watay Captain Regan waxay heleen dhammaan xiriiradii uu la sameeyay ciidamada Mareykanka iyagoo isticmaalaya aaladii ay haysteen waxa ay heleen wadadii uu ku socday markabka waxay ku qaadatay hal maalin inay markabka dul tagaan habeenkii Captain Phillips waxa uu qadka ka baaray xogta burcad badeedka iyo aaga ay ku sugan yihiin subaxiina waxa uu shaqaalihiisa ku amray inay heegan galaan laakiin waqti badan kama aysan soo wareegan raadaarka markabku waxa uu soo qabtay laba doomood waxa uu isticmaalay doobiro si uu u xaqiijiyo inay ku soo socdaan dhinaca markabka waxa uu la xiriiray qolka motorka si wax yar ay u leexiyaan markabka haddana waxa uu la xiriiray xafiiska ciidamada waxaana uu sheegay xogta labada doomood balse gabadhii askariyada ay fadhisay qolka xafiisku waxa ay u sheegtay in doomahani ay u diiwaan gelisay kaluumaysata ahaan Phillips waxa uu mar kale fiiriyay doomaha balse markabku waxa u jiraan hal meel wax ka yar markii uu ogaaday inay wataan hub waxa uu iska dhigay askari saaran markab ciidan waxa uu la hadlay ciidamadiisu si ay heegan u galaan sidoo kale waxa uu dalbaday diyaarado dagaal wuxuuna ogaa in burcad badeedku ay la socdaan xiriiradiisa iyo dadka uu la hadlayo way shaqaysay qorshihiisu waxaana cabsatay hal dooni oo laabatay laakiin doontii uu Muuse iyo asxaabtiisa wateen waxa ay sii waday socodkooda halka kabtankuna uu ku amray raggii joogay qolka motorka inay hoos u dhigaan xawaaraha markabka si ay ugu leexiyaan bidix iyo midig taasoo ka dhigan in markabka gadaashiisu ay ka samaysmayso hirar waaweyn taasina aysan awoodin doontu inay ku socoto waxaana sababtay in motorkii doontu uu cilad keeno habeenkii kabtanku waxa uu isugu yeeray dhammaan saaxiibadiisii iyo shaqaalihii si ay u keenaan go'aan wadajir ah wuxuuna u sheegay inay fiijignaadaan subaxii xigtay burcadii waxa ay soo galeen aagii markabka mar kale kabtankiina waxa uu ku amray shaqaalihiisu inay hoos u degaan wuxuuna wacay xafiiskii xogayaha ciidamada wuxuuna u sheegay xaalad degdeg ah xogahayii ciidamadana waxa uu sheegay in ciidamada halka ay joogi doonaan muddo yar oo kooban balse burcad badeedii ayaaba ku soo dhawaatay waxayna ku fureen tubooyinkii biyaha si culays ay u saaraan doonta ay wateen burcad badeedka laakiin Muuse iyo saaxiibadiisu kama aysan nixin arrinka balse waxay rasaas ku fureen shaqaalihii waxyar kadibna waxa ay soo fuuleen markabkii kabtanku waxa uu ogaaday inay soo foosartay xaalad halis ah wuxuuna u sheegay shaqaalihiisu in qolka ay ku jiraan oo aysan soo bixi karin ilaa uu ka dhaho ereyga ah waxa la gaaray waqtiga cashada waana erey baaq ah oo ay isku fahmayeen muddo yar kadib burcad badeedu waxa ay soo galeen qolka kontaroolka waxayna qori ku qabteen kabtankii Muuse waxa uu sheegay kabtanka inaysan muhiim ahayn inuu cabsado balse kaliya ay tahay inay isaga dhageystaan Captain Phillips oo argagaxay waxa uu sheegay kaliya inay wadaan badeeco raashin ah sahay ahaan ay u sitaan kaliya $30,000 laakiin ay qaataan balse ay nabadgeliyaan oo aysan waxba gaarsin shaqaalaha laakiin Muuse waxa uu ku amray in shaqaalaha oo dhan uu isugu yeero qaybta sare kabtankii waxa uu la xiriiray qolkii motorka isagoo u sheegay inay soo baxaan balse ma aysan soo bixin maadaama uusan adeegsan ereygii isku fahmayeen Muuse oo aad u xanaaqay waxa uu sheegay in qolka motorka la geeyo kabtankii wuu ka aqbalay Muuse iyo mid kale waxa ay soo raaceen kabtankii laakiin kabtanku waxa uu isku dayay inuu mashquuliyo wuxuu si hoose message ugu diray shaqaalihii laakiin Muuse oo aad u xanaaqay waxa uu arkay qariiradii qolka wuxuuna si adag u sheegay inuu furo qolka motorka laakiin kabtanku waxa uu ku dhahay in qolku uu kulul yahay muhiimna ay tahay marka hore inay aadaan qolka cuntada si ay biyo uga soo qaataan waxay soo aadeen saddexdooda qolka cuntada balse kabtanku waxa uu arkay in Muuse uu kaba la'aan yahay wuxuu si hoose shaqaalihiisa ugu sheegay inay dhalo ku jijabiyaan albaabka hore ee qolka motorka markii ay soo galeen Muuse waxa soo gaaray dhaawac daran waxaana uu ku istaagay dhalooyinkii loo diyaariyay taasoo u sahashay kabtanka inuu damiyo dhammaan nalalkii motorka si shaqaalaha kale aan loo arag laakiin Muuse waxa uu ku qeylinayay kabtanka balse isaguna waxa uu iska dhigay qof aan waxba ogeyn laakiin Muuse waxa uu ku amray kabtankii in ninka kale ee la socday uu u raaco kor si saaxiibadii kale loogu sheego arrinta markii ay baxeen kabtankii iyo ninkii kale shaqaalihii waxa ay ku soo boodeen Muuse waxayna si fudud ugu qaateen hubkii uu watay waxayna saaxiibadii kale ku qasbeen inay sii daayaan kabtanka haddii ay doonayaan inay Muuse nolol ku helaan laakiin kabtanka oo xaalad dejinaya waxa uu sheegay inay siin doonaan doon badbaado ah iyo lacagtii sahay aan ay u wateen oo $30,000 ah si bas ay uga baxaan markabka wuxuuna mid iyaga kamid barayay sida loo wado doonta badbaadada balse mid kamid burcadii markii uu fahmay sida loo wado doonta waxa uu Muuse si hoose ugu baaqay in kabtanka uu ku tuuro doonta si ay u afduubtaan waxayna isla markiiba la boodeen
boodeen doonta laakiin shaqaalihii oo aad u argagaxsan waxay go'aansadeen inaysan ka harin doonta si kabtankooda kaligiisa aysan uga harin waxayna wargeliyeen ciidamadii taas oo keentay in si degdeg ah loogu soo diro diyaarado balse ciidamadu waxa ay u sheegeen kaliya inay awoodaan inay soo furtaan kabtanka inta aan doontu aysan gelin biyaha Soomaaliya burcadii waxa ay go'aan ku gaareen in kabtankii ay afduub ahaan u haystaan si lacag badan ay ugu helaan shirkadaha caymiska maraakiibta kabtankii waxa uu si caadi ah iskala hadlayay burcadii iyaguna waxa ay ku sii siqayeen inay galaan biyaha Soomaaliya laakiin hal mar waxa go'ay xiriirkii iyo satellite-kii waxaana doontii soo gaaray markab ciidan waxaa saaran ciidamo fara badan balse waxa ku jiro qof ku hadlaya luqadda Soomaaliga waxa uu sheegay gorgortanka ka hor inay qaataan cunto iyo biyo si ay uga taxadaraan caafimaadka kabtanka laakiin Muuse waxa uu dalbaday malaayiin dollar wuxuuna u sheegay in xitaa diyaar u yahay in meel walba uu gorgortan kula galo ciidamadii waxa ay go'aansadeen inay soo qaataan dooni yar waxayna soo aadeen dhinacii doontii badbaadinta waxay weydiisteen marka hore cadeen ah in kabtanka uu caafimaad qabo Muuse waxa uu banaanka u soo saaray kabtankii halka kabtankiina uu la hadlay ciidamada isagoo ka codsaday in qoyskiisu ay u sheegaan inuu caafimaad qabo sidoo kale waxa uu ku dhahay number 15 taas oo ka hoos baxday inay burcadii fahanto qishkan uu bixiyay kabtanka wuxuuna kala jeeday kursiga uu kaga fadhiyo doonta inta kadib Muuse waxa uu dalbaday 10 milyan laakiin ciidamadii waxa ay u sheegeen inaysan fududeen arinta balse ay ka soo tashan doonaan markii ay baxeen muddo kadib kabtankii waxa uu Muuse ka codsanayaa in uu soo kaadiyo laakiin Muuse oo isdhibanin waxa uu Najiib ku amrayaa inuu kor u raaco si uu soo guto xaajadiisa laakiin kabtanka oo arinta kala jeeday qiyaamo waxa uu Najiib ku tuuray biyaha isagana uu iska daba tuuray laakiin Muuse oo arinta fahmay isagana uu iska soo daba tuuray taasoo sababtay in kabtanka uu isdiibo doontana uu ku soo laabto muddo kadib Muuse waxa uu ciidamadii u sheegay in xiriirkiisu intaan ku eg yahay uuna la soo hadli doono marka uu tago Soomaaliya balse wax yar kadib waxa is soo dul istaagay diyaarad sidoo kale markab ay saaran yihiin shiishahano iyaga oo kaliya raadinayay fursad ay afartooda ku toogtaan waxayna magacaabeen mid kasta magaciisa iyo halkii uu ka imaaday taasoo ku abuurtay burcadbadeedii walwal badan Muuse waxa uu soo baxaya banaanka balse intaan la xirin albaabkii doontu waxa ay u soo tuurayaan jaakad jaala ah waxayna u sheegayaan inuu xirto kabtanka si ay ugu difaacdo qabowga balse iyaduna waa qish kale shiishaanaduna waxa ay ku raadinayay saddexda burcadbadeed kale kabtanku waxa uu markaan la soo baxaya waraaqad wuxuuna isku dayayaa in qoyskiisu uu qoro waraaqad Najiib oo agtaagnaa waxa uu ka xanaaqaya waraaqada uu la soo baxay wuxuuna isku dayayaa inuu dilo kabtanka balse isaga iyo Bilaal waxa ay si lama filaan ah soo galeen doobirihii shiishaanada laakiin shiishaanadu waxa ay doonayeen in dhamaantood ay hal mar wada toogtaan waxay doonta ku soo tuureen xarig si ay u soo jiidaan taasoo keentay in saddexdooduba ay doobiraha soo galaan waxayna shiishaanadu hal mar wada toogteen saddexdoodii kabtanku waxa uu qeylinayay si aad ah waxa uu moodayay in xabadu ay isaga haysato intaa kadib waxa ay xireen Muuse ugu dambeeyna waxa ay soo badbaadiyeen kabtankii waxaana laga daaweeyay dhaawacyadii soo gaaray waxa uu dib ula midoobayaa qoyskiisa iyo saaxiibadiisa kale filimkan waxa uu soo dhamaanayaa Muuse oo lagu eedeynayo burcadbadeednimo waxaana lagu xukumayaa 33 sano oo xarig ah guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena tani waa filim ay qayb kamid ah jilayaan Soomaali ogowna mowduuca loola jeedo waxa uu in badan taabanaya xaaladda badeena laakiin Soomaali waa Soomaali inta ayaa ku soo gabagabeynaya muuqaalkeeni waxaana rajeynayaa in muuqaalka aad wax badan ka fahantay sharxaadiisa waxaase ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto aadna la wadaagto ugu yaraan hal qofood mahadsanid daawade